marnaba degdeg ha isku furin. Ma jirto ganacsi la bilaabay one day berri hore ka noqday. wax walba waxa uu marayaa marxalado kala duwan. ganacsadahan maanta aad arkayso ama dukaan kale ama baqaar kale waxa uu soo maray xili oo hal macaamil uusan haysan. laga yaabaa inay muddooyin bila ku qaadatay. maantana waxaad arkaysaa inuu heerkaasi taagan yahay. sadarteed halkayga waxaan ka wadaa ujeedka aan u socdo waxay tahay suuqani forex oo la dhaqan sida ganacsi oo kale. maahan hadaad maanta soo gashid inaad isla maantaba aad milyaneer ka noqonayso. jaranjarooyin ayaa jiro, isteeba la marayaa jira. isku day marka in isteebadaas aad soo martid. qodob kale waxay tahay koob ha u soo galin inaad lacagtu waa muhiim lama diidana, balse inaad xirfad baratid u soo gal. haddii aad xirfadaasi meel saartid waxaan aaminsanahay in yaroo kooban aad ku gaari karto guulahaaga. laakiin Soomaali haddaan nahan inteena badan waxaan jecelnahay waxay tahay xaaladaha shortcut-ka ah. muuqaala in badan waxaad arkaysaa dadka in badan aysan jeclaan hadduu saacadihiisa ama waqtigiisa aad u fog yahay oo kaleeto, ama daawashadooda aysan doonaynba xitaa waqtigiina geliyaan. keliya ay rabaan 2 + 2 = 4 laba xabo in iskugu daro. laakiin taa ma ahan. muhiimadda waxay tahay in ganacsigaagu aad si dhib leh aad u fahmi kartaa. mar walbana waxaa la rabaa inaad meel ay ku calaamadaysan tahay xirfadaada. maanta heerkay taagan tahay waa inaad ka duwanaan tahay beri iyo beri dambo. sidoo kale waxaa laga yaabaa maanta qof maanta doonaya inuu $10,000 sameeyo raba, balse weligiis hal deemo xataa uusan baasinin. laga yaabaa inuu deemada lod weyn ku qaatay isgambalin oo kale oo loo isticmaalo. lama rabo. si nidaamsan deemada inuu ku baasiyo. marka istijaabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.